qurba joogta Soomaaliyeedoo walaalayaalow soo dhawaada Soomaaliyeedoo qurba joogta Soomaaliyeedoo walaalayaalow soo dhawaada Sokeyi wada heshiyo giddi waysa saamaxeeno nabadi noo samato saadaashu waa guul sokeyi wada heshiyo giddi waysa saamaxeeno سمعتو سادا شو واقول وادا الكيني وسو دوادا ساعة بفورا وسو دوادا ولا ريارو وسو دوادا
Soomaaliyeedo walaalayaalo soo dhawaada Soomaaliyeedo qurba joogta Soomaaliyeedo walaalayaalo soo dhawaada sokeeyii wada heshiiyo giddi waysa saamaxeeno nabadii noo samaato saadaashu waa guul soo qaban qaabiyey barnaamijkan quruxda badan casuumaadda ah waxaa mahadle walaalihii soo ajiibay oo kasoo qayb galay waxaan rabnaa marka xafladii casuumaadda ahayd inaan bilaabano waqtiga waa socdaa marka intaan xafladda u gudagelin maaragtay waxaan rabnaa aayadaha qur-aanka in aan ku furano waxaan noo akhrinahay maaragtay sheekh maxamed yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحالي راميل هدي اللي سوي مادو باي لونو وحيك إيماني ساميشاس وانا كوب اللوني إلهي سبحانه وتعالى هنوغو أنفعو وعدي ودنا وحوك بالله ده كل ماذا إلهي سبحانه وتعالى هلقى بقو سقانا أبورتي inaan caabudno noo abuuray marka arintaas inaan ku soo jeedno oo ku seexno oo talaab kasta iyo saacad kasta iyo barnaamij kasta wuxuu rabaa ahaado inaanan ilaabin ilaahay subhanahu wa ta'ala intaasaan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay akhyaarta مدن يالي مروين وحا عاوة نوجو مرتي علص أو ميل فوق نوغتي مت مركا وحاربنا إنان مارتي مرتقات كي برنامج كي أنو تلقلني إنان سيقو دقلنو عاوة وحا مرتي نواه ولالك إن إسماعيل عبد الله سياد ولو يقان إسماعيل قوري إيه مرتي دا شرفت على إلا سعوتو marka waxaan rabnaa maaragtay maadaama waqtiga aad cariiri u yahay in aanu ku sii dheeraanin hadalka waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo ugaaska generaalka beesha qaranle generaal maxamed faarax aliyow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale ayaan soo dhaweynaa wiilkan adeerkaan u ahay ismaaciil gooni iyo walaalkay ama kala adeerka u ahay wilkan ka Faisal ay shaabal jaamaha iyo bakki oo hade soo dhaweyntooda iyaga qayb weyn ka qaatay waa mar waan soo dhaweynaa insha Allah taala waxa mahad mudan goobtan sidaan quruxda badan in isugu nimaado noo suurto geliyay gabdhaheena sharafta leh aan iloobi karin hawsha ay noo hayaan ma iloobi karin mana qaban karno gabdhaha hadda isku taxallujiyay soo dhaweyntiina haddaan qaar magacyadooda ilooba raalli ha iga qaadaan qaaran ka xusaa waxaa waaye qamar abuuse xaawo geni xaawo teenis haddaan tiriyo awdhan laga gaari maa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin inay noo suurtageliyeen soo dhaweyntan quruxda badan mar kale ayaan soo dhaweynaa marka waxaan rabaa ismaaciil gooni waa kuma dadku ma yaqaaniin si fiican uma yaqaaniin ismaaciil waxaa waaye wax uu qabtay dalka iyo qoyska uu ka dhashaba wax la tiri kara ma aha wax hal goob lagu sheegi karana ma aha mar wuxuu ka tirsan yahay ganacsatada Soomaaliyeed kuwa ugu fircoon ka tirsan yahay
ganacsatadana waxay u qabteen waddanka Soomaaliya wax weyn ay ka qabteen dawladdu markay wax ka gaabtaan ayaga ka bijiray dadka masaakiinta ayaga quudiyo wax siiyo waddanka waxay ka sameeyeen inay meelo masaakiinta wax lagu siiyo oo mashaariic marka yaani Ismaaciil markaan sheega waxa way qoyskiisa wax u qabtay inta yaani dalka uu qabtana waa badan tahay laakiin qoyska uu ka dhashay wuxuu u qabtay waxa way xariya wuxuu sameeyay dadka agoonta lagu quudiyo wuxuu ka warqabaa qof kasta iyo meel kasta oo lagu dhibaato ka taagan tahay inuu qarash ku bixiyo oo lacagtiisa ku bixiyo inuu daryeelo marka waxa waaye wax la loobi karmaan waxa lagu qoraa qaaraanka ugu badan oo qoyska uu ku dhashay tolkiisa uu ku caawin marka waxa waaye wax weyn oo noogu saabsan oo qabtay ajiro mana iloobi karno madaxu noo saaran yahay hal ma hadiisana iyo soo dhaweyntiisa jacayl weyn aan ku soo dhaweyneynaa hadda saaxiibada la socdana waxa la yiraahdaa qof marka ina barataraftii saaxiibkiis fiiri doo Ismaaciil nin waddankiisa uu qabtay yahay nin helada qoyskiisa uu qabtay yahay ayaguna sidoo kale waay ma la saaxiibi karaba isla saaxiibi karaanba dad aan isku dhaqan ahayn oo isku diin ahayn oo isku maaragtay ujeedeen ma saaxiib karaan marka ayagana aad u soo dhaweynayna intuu Ismaaciil qabtay inay qoyska ka tirsan yihiin iyo dawladdu u qabteenba waxa waaye waa la huba marka ba soo gaabina waqti waa gaabin yahay marka intaas uga baxaa insha Allah waxa jirto waxyaabo badan ayaa Ilaahay dadku kula xisaabtama qofku maal siiyo maalkaas waa la weydiinaa meesha ku bixiyay qofku fakhri ka dhigo oo waxba siin hatta waxa laga rabaa fakhrinimadaas Ilaahay inuu ku shukriyo waxyaabo kale waxa jiro oo meel kale laga siiyo caafimaad oo kale waxa jiro haddii madax laga dhigo oo madax naqatid aqal su'aal ku haysato waxa waaye madaxtinimada lagu xisaabtama cadaaladda lagu xisaabtama waxa qabatoona lagu xisaabtama haddii laga dhigo aftaham laga dhigo oo nin codkiisa waxna ku dudumi karo waxna ku dhisi karo laga dhigo waa lagu xisaabtama codkaas iyo kartidaas Ilaahay ku siiyay waa lagu xisaabtama waxa laga rabaa inaad yaani aad codkaada aad mataqaana u kaashato oo ku isticmaasho inaad wax ku dhisto hadda danka xun u xisaabtantana aad u geelisana aakhira waa lagu qabsanaa marka Ilaahay wuxuu ku siiyo dhan waa lagu xisaabtamaa marka intaas marka uga baxo waxa jiro waxaan galaa marka hal qodob dalkeenu hadda wuxuu maraa isgoyski Maxamed Siyaad oo waddanka uga cararay isgoyski la gaaray in maarta waddankeenu ka dhaco civil war ay waddankeenu maraa waxaan u soo qaadaa waxa waaye nimankan wiilashayda ah ee maanta ay hor joogo oo waddanku noqon doono inay naga gaarsiiyaan fartiinta aan farayno marka yaani la yiraahdo civil war la yiraahdo ama dagaal ahliya la yiraahdo waa soo marnay marka waxa la yiraahdo iloobe oga hadda dhowbe hade dhibaatadina gaartaa wali diibteeda lagu taala hadda inaan hadda civil war haddana waddankeena ka fulino waa qalad muxuu ku dhacay civil war Maxamed Siyaad uga baxay waddanka heerkii maree barbiyo marka madaxweynaha uu ka tagi oo xilkii iska wareeji waay uu diiday inuu waddanka qabto doorasho ka qabto uu diiday inuu maaragtay xilka wareejiyo
وهدنا كدري ولبه إن دجاجنا قاركود يدك قاركود وما أرتي سجارة هانت وعدادي أما أولبه دتك ويك عين دتك وعبرين بهذا بوفيس وقت أدوس ما أنت دم بوفيس ودلاعة دتك ويك قرحين ويتكلمين هذا مركز يتكلمين مدحوني وكبح دتك مدحنا هذا واضحين عيدا مدي لسي أو سراكيشي أكاديميات جهاد أو عيدا مدي أفريقيا وحوق بناي لسي وأني أن كمدها كل قحوتي أنا قلنا جرنا ذي كل جود وحي آذين دولها بنانكا ومريكان كندا يوروب مال والبيتك إبر عيدنك إبر وحيابي لقد لسي ودنك إبر ما سهري حديث بالور أولو حتى العقد بنانك كوتا الحولا بنانك كويالو دولة بنانك دقتي ولا قادنا كدولة كوتا ضد ما قبتي مركب حواي وحيابها أو قف أو كبح سنة مجرو قف مال قف يعني حول بدن قف شرف له قف مدحة كله dadkii isku sheegayay maaragtay dhahay waxaan nahay anaga yaani dadkii kacaankii sabeeyay gudoom madaxweyne ku-xigeenkii oo dalkeena oo maxamed siyaad markuu joogay kulli qaxootiyeena qabay kulliga qaxootiyeena qana marka waxa waaye hadda tiyo kale ayaa taagan sida isgoyskii maalintaas la joogay ayaa maanta la maraa marka waxa waaye waxa lagu dagaalsan yahay oo mucaarad iyo muxaafid dad isku tilmaamay ay ku dagaalsan yihiin waqtigaada waa ku dhamaateen iyo isdhiib oo ka taga waxa xilka ka tag oo xilka wareeji iyo aniga waxba qoliyaha waxay dhiman yihiin lagu dagaalama taasina waxay dhalaysaa waxa ku daray hadana lagu sii daray waliba in dadka qaarkiis lagu duulo dadka shacbiga la dilo la barakiciyo taasay waliba maraysaa maanta ka socotaa daynile ka socotaa barlaaliska maaliga tadaa lagu dilay maanta lagu dilay oo madaxa oo dad shacbi oo masaakiina oo waxba haysan guryahooda loola tagay in la burburiyo la baabi'iyo oo markaas yaani ayagina hada waxa la mukulaha dad meel ku xirto aad ul la soo qaadato inaad ku disho arabtid waa kula dagaalamay waana ka adkaanay marka dambe marka dawladda ahayd iyo ciidankeedii waxay maanta maraysaa inay dadka qaarkiis oo qabiil la dagaalamaan waliba qabiil ma ahan deegaan qabiil kamid ay degan yihiin la dagaalamaan taas waa tii marka keentay dagaalkii sokeeye iyo madaxda oo madaxweynaha iyo dawladda dhameed ay dhacdo keentay iskoosiyaal mara wiilasheeda waxaan rabaa inay naga gaarsiiyaan arrimaha noocaasa inay ku dadaalaan dhaqaalahooda u kaashadaan dadka ganacsiyaasha kale isku keenaan dadka iskhilaafsan aysan waddankeena naga burburin hadda waxaan maqlaayay madaxweynuhu wuxuu dalbay in la heshiiyo oo la isla hadlaado qolay kale mucaaradkana waa diiday horaad been noogu sheegtay kula heshiimayna dheh marka wali in hadalka aan la diidinaa qabnaa la wada hadlo aan wada hadalno aan heshiino inaan civil war waddankaas loo celin ayaan qabnaa aan ku talinaa civil war cid madaxweynuhuusan dhaafin wasiiruhuusan dhaafin nin maalqabahuusan dhaafin isku doonaan wada saaranahay eber waddanku dhaqana hotelada waaweyn iyo saraha waaweyn oo waddanka laga dhisay kulligood waa dudumaya lacagii banaanka la geystay hadiiba waxa waaye ayagana dad kala qaadana hore arintaas u dhacday dawladii hore intaan civil war ku dhicin xoolihii ay banaanka geysteen talyaaniga dawladda afrikaana dawladda Yurub iska qaatay
marka waxaan ku talinaynaa inaan naga gaarsiisiin fartiintaas inaan waddankaas dib aan loogu soo celin civil war aniga hadalkayga hoogaa waa inaan maaragtay hadalka badan waxaan ka rabnaa martida aan ka rabnaa aasaan Ismaaciil Gooni marka waxa waaye waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay isku mowqif noqono aniga waxaan ka tirsanahay guddi oo samafala oo waxyaabaha ka dhaco Canada oo community dhexdiisa xalliyo guddigaas oo Soomaaliya oo dhan ka kooban aniga aan u madaxa anoo ku hadlaa guddigaas codkiisa ku hadlaa waxaan rabnaa inaad fartiinteen naga gaarsiiseen madaxa aad mahadsantihiin محمد آدي آدي دومان سنتهاي أنت عذر محمد إسماعيل كشعي وحارب أنا كدره إسماعيل وحكميدي هاي وطن كسيدة لسعودين سيبل وارك مركو كدعي بربر بدن كدعي رجي أساسي ركت كنعسيجا الصوماليين runtii ina waxa weyn wadanka u qabtay oo maaragtay ganacsatada badan inay wadanka ku dhiirato inay maaragtay maal gashato dadkii sababay ayuu ka mid ahay marka arintaas waa ku mahadsan yahay haddana waxaan ku soo dhaweynaa Caawo Axmed Teenis si ay laba kalmad halkaan uga tiraahdo maaragtay ayadoo magaca gabdhaha ku hadlayso Assalaamu calaykum waxaan rabay inaan xafladan maanta aan ku soo dhaweyn walaalkeen Ismaaciil soo dhawow welcome to Toronto and maanta waxa waaye horta jaarida oo karanay waxaan dhanahay umalina 500,000 just in Toronto in Ontario Alberta da ka imaatay and soo dhawow xafladan waxa waaye gabdho badan ku soo laba bari anaga waxaan ogaanay what was it Sunday aan la sheegay qamar ma sha Allah gudoomiyahan waay oo jaalida oo karanay dhon isku heeso kala Canada marka waxoogaa gabdhaha waa iskaashanay een xafladan horta aad waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo gabdhaha oo ka koow ah qamar oo ka laba ayaan Maxamed Sheekh oo ka saddex ah maxaa dhahay Mariganaay caaw gabdho badan oo culus ah ku joogo ku soo dhaweeyay marka waxaan rabay deeqateen walaashay oo fadhiso een Nasro een inta magac ka tagana hadiga raadi noqdo wabri waxaan ku sameeynaa ka badan aan ku sameyn karnaa waqti fiican hadaan helno boy hadan waxaan kaaga iloobay waa weekdays ragga meeshaan fadhiyo dhan shaqo ka imaadeen waa ku imaanay marka insha Allah next time a better time ana noo imaatid soo dhawow barasho wanaagsan Caawo waa mahadsan tahay maaragtay ayada lafteeda waa gudoomiye ku xigeen ee gabdhaha marka arintaas way ka booday haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa maaragtay Dr. Faadumo in aydan halkaan laba kalmad ka tiraahdo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maqaamka ku fadhisiin iyo masabka ku fadhisiin ayaan idinku salaamay rag iyo dumar gabdhaha iyo wiilasha walaalahayga ah ee tolkayga ah waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo marti sharafka nooga yimaaday dalkeeni walaalaheena wafdigan aad u ballaaran ee matalaya dalkeeni Soomaaliya dhamaantiis soo dhawaada ka socda ururkeena ganacsatada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinteena iyo madaxdeena dalkeena aad iyo aad aan ugu faraxsanahay imaatinkiina magaaladan aadan ugu dhiiranay inaan soo orodno xitaa hadaan saaka shaqo u kala lahnay oo 9 to 5 qaar kan shaqeeyay ama xal qaar kan shaqeeyay waxaan rabaa intaan si guda galin laba eray aan dhaho inaan nashiid aan soo xasuusta aan ku dhufto saa ogaatiin anigana waxaan ahay gabar oo عربي لغسو بربارية يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس بالمقل قلوبنا هي المحل ويا فسيح المقعد مركا نواو مرحبا عندنا إماتي ماركتي فديقا وناكسن وحكا وناكسن قلوبتنا كوكو إذنكو قابلينا
aan idinku soo dhaweynaynaa walaalkay Ismaaciil goonina si gaar ah ayaan qaraabo iyo qoys u nahay hal eeda ayaan wada lahayn si gaar ah walaal dhow ayaan si gaar u ahayn aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta soo dhaweyntaada gabdhaha walaalahayga xafladan quruxda badan ay sameeyeen markii ugu horeysay ma ahan weligooday sidaan u sameyn jireen ma sha Allah tabarakallah an barolba hadda ka dhawaajinayna waayaha dambeys wartalada gabdhaha ma la fiiriya koos gabdhaha wax saas u qurxinaa marol marka taasna waxa leeyahay walaalahay aad u mahadsantihiin ka soo qabgalka iyo kulli waa kuwada mahadsantihiin anigana sida aad igu ixtiraamteen aadan idinkaga mahad celiyay jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dr. waa mahadsantahay sida aan wada ognahayba ummadda Soomaaliyeed awoodda Ilaahay ka soo waxay ku badbaaday dumarka la'aantiis maanta ummadan sharafta iyo wanaagga ay leedahay ma yeelateen ayagoo caruurtii korinayo ayagoo maaragtay soo shaqeynayo ayagoo maaragtay qaraabadii biilaayo maanta halganka ay ku jiraan ragga 100% way ka dheereeyaan marka waa dumarkeena kor Allah ka dhigo sida aan maaragtay leeyri waqtiga aad ayuu cariir u yahay meel dheerna waa laga yimid waxaan rabnaa marka hadda inaan mikrofoonka ku soo dhaweyno walaalkeen Ismaaciil Cabdullaahi Siyaad Ismaaciil Gooni in oo warbixin kooban maaragtay naga siiyo safarkiisa iyo imaashii dalka oo ka yimid xaaladda lagu soo yahay soo dhaw بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم intaan gelin waxaan rabaa inaan hal kelmad siiyo saaxiibkay Faysal Jaamac oo ah ninka midigtayda fadhiya ahna partnerkayga marka isagaan ku soo dhaweynaa marka hore maasanida gudoomiye waxaan leenahay gudoomiye rugta ganacsi ma jooga laakiin markuu maqan yahay asaga gudoomiye noo ah horta markaas marka ugu horeysana aad waxaan ugu mahad celinayaa dhamaantiin waqtigiina qaaliga anu magaaladan waa ku noolaan jiray time-kana waa la socdaa xaaladana waa la socdaa waliba si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ayaan oo iyaduna maanta qadaf fiican oo qurux badan noo samaysay horta Ismaaciil waxaan isbaranay 14 sano ka hor anigoo reer Toronto ah aan shaqo u doonanay UN-ka contract baa marka UN-ka ka soo helnay marka waxaan contractigiina la ku xiray inaan ka shaqeyno Soomaaliya Muqdisho markiina la yirina daba garan kartaa civil war-kii ayadoo anaga siyaad bar la daba socdaan ka soo tagay by the way waxaan ku yiri meeshaan la dhaho dadka la qashaa waa la ismiisaa maxaan sameynaa xamar markaan ka degaynay waxaan la hadalnay nimankan la yiraahdo aan isnaqaanay heritage waa taqaanaa aynta iyo groupkoodii marka waxaan dhahay diyaaradee la soo raacaysan waxaan nidhi East Africa marka waxaa jirta East Africa iyo African Express wixii baan isku khaladnay waa yimaadeen waana waayeen waa iska baxeen aniga wiil hadda asaga CEO-ga noo ah walaalkay airport-ka markaan nimid macnaha askarta iyo qoryahan waaweyn iyo waxaas alla la dhex socdaa ma ogtay Marchdan waa ahayd waa very hard way ogtay waxaan insan xamar kuma gali karay maxaa tala nina marka taxi la wuxuu yiri ana hotel in geeyay marka saar hotelka airport-ka ugu dhow nagee Jazeera hotel boo ahaa Jazeera markuu nageeyay wuxuu yiri marka Jazeera albaabka laga galo waa xiran yahay banaanka qoryaa taagan xabadaa dhacaya wuxuu yiri $100 baa bixinaysan I don't know inaad xamar waayahan tagteen Jazeera iyo inta isu jiraan airport waa garan kartaa $100 waa badan tahay yiri boorsooyinka mintaqaatu gaariga ku ceshaday هذا البقول ديارنا لنا هذا يسكت كوي مرك الباب كأكو قرأنا الجزيرة واحد هان وربناك متى جنان كرتنا أما جودها قلا أما نكان مرك العكت يام بحن anyway مال أن وحكبل ولا ما أنا UN contract ما وضناه عد يعني عن مال أقول مرك النوع حاجة الركض جناسي قبيلة اللي يرادو إسماعيل بونوبلش أنا إسماعيل يولالكي
rugta ganacsigaan tagno oo markaas ku taallay hotel Amira agteeda barnaamijka markuu wuxuu ahaa $200,000 marka waxaa laga rabaa taaska oo alaab inaan ka qaadno xamar bay dhaba geyno yani kilomitir 13 hadaa gaartay dowladda ma xukunto marka waxaa la 200,000 baan u baahanahay planku yahay Ismaaciil waa the first time is aragnay wuxuu yiri ma hubtaan 200 inay u baahantahay ma waa kana contractigi waa kana alaabtan qaadanay taskiga wuxuu yiri midaa inii sheega hadhowdii intaan nagu soo noqon lahaydeen hadda ma tiraadaan ama milyan nasiya ama 800 ama 700 aniga waa sir waxaan ma armaa siyamaya wax qabsada agreementigii 700 buu yiri laakiin 700 iyadoo la gaarin baan shaqadii qabanay 2014 years ago kabacdi company we reached adan ku revenue is haajigna waa la socdaa waa $30 million weli lix baan nahay ilaa iyo waagaas wax aan isku qabno xisaama abase wax kale يعني هير أن إسكار هذا كور بحيرنيو هذه ركنات جوار بنكو درنيو حمر جوكت وحنا قف كنا جوكتو إجا حوك بدنا جوكت حاجر على هو جالس كان مقاضن كره أن in fairness إنه وحنا كويري أنت تهريبي مالها تجي يضع عيال كيسي سكول كجينيسي وحول بس أمينيسي so it's not fair إن حدا العقبان عليه أمتراج مركوز كي قلل سنة يا ماشاس marka waxa kale oo ka codsanaya waa kale ganacsatada dawladda kama foga kumana dhawa waliba Ismaaciil siba loogu tiriyaa marka ninkan Ismaaciil runtii aad ba xamar looga yaqaan ama Soomaaliya ama Nairobi ama meelaha kale khayriyaadka uu sameeyo anaga waxa bishii martagnaa ama labadii biloodba ديني لما يش أقونت anybody أو بعض مقاشين بالغيابة سكول كأقونت كان بنيجي يجوا مركو حرية حسابتنا تبرعات بان بحنا لكن وانا لو كسو هلي بقلا أنا جيل بان لسيا وعمل معناها حمر most beautiful area مركو روب كده وديني لما عن فيديو دينا كاركتر مركو نكان نقالي هذا ستان نوانا أكسن بايستان إما إنه يعرف ديو والله يا لكن وانين gentleman مركا ليرا the work gentleman he deserved that مركا الحمد لله لها gentleman بعد هاي ستانا وما سنتي بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلهي بانو مهدين يا مركا كوباد سبحانه وتعالى فرصدان يوميشان اسوك إنك كيني annagu caafimaad qabno oo dad muslimiin ah markaan Ilaahay u mahadiyo hamdan aan la soo koobi karin waxaan rabaa marka labaad inaan u mahadnaqo jaaliyadda iyo qalqaaliyaasha shirka oo u horeeyo General Maxamed Faarax Ali oo adeerkay iyo Engineer Cadow oo saraakiish la rabay inay Soomaaliya wax ka qabtaan laakiin dhaxantaanay joogaan sidoo sheegayna dalkii anaga burburay marka mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gabdhaha waa badan yihiin magacadoodana ma soo koobi karo in fact inaan magac ahaan u maqlo maahana qaarkoodna caawa isugu keenna horeysa laakiin waa ogahay inaan gabdho doora leenahay oo ragga ka fiican aad baan idinku mahadcelinayaa walaalahay soo dhaweynta iyo diiranaanta dhamaantiin anigoon idin kala reebin intaas waxaa dheer guud ahaan beesha Karanle waa u mahadcelinayaa Soomaaliyeed reer Toronto
جزاكم الله خير الجزاء يعني أنا سود ويسان أنا جي صاحب كي فيصل حسن جامع وأهرنتي نين ولا وأن وقتي أنا سنقنا كوبا لكن أن يعني آد يسوفقنا هاي sababta aan inaan Toronto imaadana isaga ay ka bilaabane sababtoo isaga invite gareeyo yiri imaad meesha wuxuu ugu celcelinay waqti badan anigana in waqti hela ma ahi marka Faysalna si gooni aan ugu mahadcelinaa waxa jira markuu dhowr jeer ugu soo celceliyaan markii dambe aan ka aqbalay in invitation la ii soo diro last year la ii soo diray فيزا ده وحن سوق عطي طبعا سنة فيزا أو حال يسيء my first time وأنا عطسده إن فيزا ده البضو جولاي أيام اللي يسيء last year مركا إن إمادة جولاي to May أنت أسيقو قات إن عم بلتوهم بريحلو مركا طبعا كبريان هذا وحن كسو عريرية وقت كان كحومها إن أنا وقت بدن مركا أنا لكن بعد ما طبعا سنة هيستو لقى يابا إن سوى نقضو مركا يقول عي إن أفراغ اللي هيسيو نعمتان مغبون فيهما الإنسان الصحة والفراق لبشي ومهم هو بني آدم كحياباي هيستان ويسن آدو حسوسنين ويعني فراغ يعافي ماتك مركا وحان روا دولة كندا إنهم هاد عليو رنتي والوالي شرفي إنتان دالبضي إنان كغيب قال ما فيزا أنت دالبضي اللي يسي طبعا سنة أولي V1 معناه ده أي تمركا رتا ما كرتا ورند اللي يوصل در اللي يري أن وحوي مركي كاد على طبعاً كسنة وعدل كرتا مركا رنتي وأم هاد علينا دولة كندا وحكلوا أم هاد علينا يعني ضد جاليات صوماليات سود ويسي إلا أذك ويوح بدن لغبتي ونولل يقص ميسي كدي مركا أنا عن جمعه نخبة بين وحي لهي النسيو إن معها هاي إذن كوحان رواينا كل دارمو إن هذه لهي كعب 60 الدنيا ده يعني أيام معدودات مركا إلهي عبسيديسة سيدا آيات أنا أخريناي إيه مدة كحكتة أو يدون الشيء يسا من نماذا نوع مهم هذا ومديسنتهين ويسود ويسين إن كلو بدنا وكسو غير ويسي وفهم سنة هاي واكين دايز معنى هذا نفهم سنة هاي قف كيو ساك شقتي أما شغلي كسو جوي قيبة بدنا إذا كمدنا ويسوعون وحيرا ما إيمان كرنو سجوني إنه هو أرجعنا ربنا because شغلنا كجرنا با مركا إنكو شغلي كسو تيجي يعني هلو أو قبطان إنا أنا أركتان يو صاحبي إلى صاحبي إلى السعودة سجوني هذا كم هذا إلينا وحنربا مركا من لماذا أهي 60 إنا ماشى كسي والدين ويعني وشيء مهم إذا أنه لشيء إنه حبات كوك جوستن كرتان حبات كوك قبسن كرتان وحلا يري وهذا البدن على جاربا أنا قلت ذاتك هذا الكبدن ما هي شغلة إذا وحلا يجا إيبي أو قط بس انتهى سنة أنا أمبرتي last 4 years نحن أنا عبد الحميد أحمد عصبلة جعل وحواي أدير كي على يا أبي ولا ليهين قروا دان جناح كبلا من 1984 مليرا فرجنا وكنت على كسمايو ولا ليه بعد 1984 جناح كبلا أبي ويديس يدحاو شيخ أي جزء دويسي أنا مريري كسو قاضي أفرجوان وقلية مركا ماشى سان جناح كسو بلا from there on شغلي جناح هيد مركا هذا الك ده ميكروفون كمعلمين تي سياسيين تاكو في عن مركا حداد إليه بحي إليه بيننا مركا هون عقلي جنب بدنين وقف عقل بدن أو حسكو أدي كرتا مركا لو أنا شغلي إذا ما هم مركا بروفيشن كي هو بيزنس كي يو إن وحل إيبيو إن ديل لسمايو إن إيميل قرو حلو حيو سكوبان هذا مركا أسوق هذا الصومالية إسقوي سي مريسودو شيء جنرالك حالته واسكا قلب سنتها ملا ملينين إن فاكت أنا هذا ماشى سجاري إنه دوان شهان يعني صدّن سنة كهر إن عم بربرني أنه أوك وحي أنكو سمعنا سيستم يدولة النور سناد يوحي دعي إن ما أنت هذا إسكوسي تاجنا وأنا سيب ضرب أنا وحنا إسلام هاي وأنا لتجابنا امتحانا كجرنا وفا مدح لقى دقة عود على السينا كلسوني على السينا ثقة على السينا ملك الودقة والله يا قف كم ما بأهم مركا أننا وحنا نقص على امتحان مركا لو امتحان مركا فافروا إلى الله يعني وأنا إلهي ونغنو ونتوبت كأنه وأن إلهي برينه إنه نقول أديو مدح في عن وسن نعقابين ودم بيجين أن نقول قاعدين
Soomaaliya nolosheedu waa iska yara adag tahay waxaan adkeynaya dhowr sababood waxaan leeyahay federaalka waxaan adkeynaya abaaraha waxaan adkeynaya leadershipka oo la dooranayo mar waliba criteria macna gooni leh lagu ma fiirinayo dadka xafiisyada la geynayo waa dad lagu keenayo hal qof markuu madax yahay oo wax ka hooseeyo dhan inay ka fiican yihiin la rabi lahaa laakiin dadkii oo dhan meeshii waxaa jirta dhibaato fara badan in fact inaan dadka caayo mar rabo anu gafo laakiin xafiisyada dadka fadhiya waxay u fadhiyaan arrimo ka hooseeya waxa magac ugu qoran agaasime wasiir maareeye magacyo ku qoran kaas waxa laga rabaa inuu leadership tuso baahi jirta wax ka qabto dadka noloshiisa wax ka bedelo muhiimadda meesha ay leedahay service provider inuu yahay inuu og yahay ma ahane wax kale uu ka fikiraa qofka markiiba laga yaabo adinka bari hadaa meesha tiin aas ka fikirtiin marka naftigiina ilaahay inuusan idin imtixaanin oo idin duceeyna kuwa hadda haayana ilaahay u fududeeyo Soomaaliyana way iska dhiban tahay horta aanu duceeyno waxa soo haray meesha wax maray sida wax loo qaban karo in midnimo wax lagu qaban karaa iyo wada jir in lagu wajaho waa diyaaran u nahaa Adeer Maxamed taladiisa inaan aan isku dayno hadda ka hor farmaajo markuu joogay saan oo kale ahayd arrinta trial badan aan sameeynay waana lagu guuleystay oo dalkii civil warki 2 bari 3 bari oo socday haddana waxaan isleenahay insha Allah ilaahay rajadiisa laga maqoosto inna la yasmu rahmatillahi ila qawmul kafirun waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu faraj keeno waana wadaynaa idinkana markaan idinkaga mahadceliyo soo dhaweynta markaan dalka guud ahaan sawirka yaani waxba idan ma seegan qof kasta wuxuu haystaa wax la yiraahdo social media ama waxa lagu qoraa journalka laga aqrinaa wixii jira wax hadda gooni ah oo aan idin kala hadlayo ma jiro dadka ka dhalateen oo karan leh runtii xoogaa talaabooyin fiican ay hadda qaadayaan midnimadooda waa fiican tahay marka iyaga mid yihiin oo waxa la tiis daryeela tu kala ku dara bay Soomaali wax ku tari karaan midnimadooda laga shaqeeyaa isu dhawaanshooda laga shaqeeyaa ilaa kuwa Itoobiya jooga wafdi aan dirnay hadda duubista ugaaska waxa ka yimid 20 gaarayo ku dhudhow ilaa heer wasiir oo ku jiro wasiirka gobolka oo ka yimiday waxay tuusinaysaa sign fiican iyo isu dhawaansho iyo in maaragtay dadku ay midnimadooda soo celiyaan iyo sharafkooda arrinkaas marka juhdi iyo lacag lagu bixiyaa mar waliba waa ognahay mar waxa jirta dadku ay ku tiirsanayeen North America iyo Europe iyo walcaga remittansiga still waa jira arrinkaas oo wax badan ay taraan laakiin dadka gudaha jooga laftigooda wax bay qabanayaan Soomaaliya rihi iyo xoolihii abaar iyo waxba taabtay aad u taabtay runtii waxaan la isleeyahay waa imtixaanka aan ku jirno qayb kamida ilaahay naga qaado meesha aad ka wadin ka sii wada wixii su'aal gooni ah wala weydii kara dalka Soomaaliya waxaan rajaynaa in uu ka gudbo caqabada hadda jirta oo san burburin ilaahay nama burburiyo horaan u soo burburnay madaxda hadda jirtana waxaan mar walba kula talinaa inay ka shaqeeyaan wanaaga iyo wixii naftooda u qaadi lahayn waa ahib linaas ma tuhib linafsik yani qofka bini aadamka inuu u qaado walaalkiis wuxuu naftiisa u qaadi lahay hadduu siyaasi yahay iyo hadduu ganacsade yahay iyo hadduu oday dhaqan yahay saasan kala hadalnaa annaga ganacsataa mar waliba cidda timaa systemka waa la shaqeynaa waxbaan la qabanaa waxbaan la toosinaa si dalku u tooso lianna hadduu dalku tooso interest ugu badan qolada le annaga ganacsatada wey because waxaan ku leenahay investment meesha xoola gelisa waa inaa ilaalisa hadda North America siyaasadda iyo dadka ilaaliya waa dadka burjuwaasiga dadka capital xoolaha le way annagana inaan ilaalino dalkeena waa jecelnahay laakiin waxaa jira cudurro la yiraahdo qabyaalad حاجة عذر ليراهدو محل يرا أركت جابي ماشي لقى فكري لها دن جود وحلقى فكرها دن جار يو مالين سيدي وحلوه لي لهاي مد أن معنا سمينين أو مالي قفنا جارسينين مثلا قف شخصي هدو حقاته وضل كردعه ماله كون ولا أنا يا رملة هدوس ضل هين وحال ضل أنا اللي ما درين كجوك ضل هذا إن المركز أتكفي كتيس دنتي سجود أو مركو قرحون يهاي أو لسان يهاي أو سيستم ليه يهاي adigana ashraf ku noolaa kartaa marka waa idin mahad celinaa soo dhaweynta sida degdeg ah labada maalmood iyo maalinta ah ku isku diyaariseen waliba maalin shaqo ah Adeer Maxamed waxaan leeyahay adeer waa mahadsantahay adiga injineer Cabdi si gooni ah injineer Cabdi reer Syria isla ahayn in fact aniga North America ciyalkayga degan Minnesota degan yihiin waa imaadaan mararka qaar nin aad inkaga fog ma laakiin Canada waa my first time waa ku taamay inaan imaado وانا صرنا نقد وانا بحيث سؤال وفريهين
dabcan de horaan u cudur daartay waxa la yiri ama afeefo ama saas lahaw inaan af Soomaali badan garanayn ama aqliga iska gaaban yahay intaas si gooniya waxaan ugu mahadcelinaa Faisal Jaamac iyo saaxiibkay Cabdirashiid Bakki Bakki waa nin reer ceel Hindi ah ceel Hindi ku koray ku barbaaray ha iska ahaado reer gaalkacyo laakiin waxaan caawa abtirsanay aadan isugu soo dhacnay marka abtiyaashay uu noqday aad u mahadsantihiin holac si gooniya ha gudoomiyaha ciyaaraha holac si gooniya kugu mahadcelinaa adiga reer dayaxaad tahay soo dhawow mar labaad assalaamu calaykum waa mahadsantahay mudan Ismaaciil Faisal Bakin runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maaragtay soo dhaweyntiina